السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفردقيني لبعض سؤاله أنه كيف يدسنجرنا بشهر رمضان سنة كنا فربقالي عشان يفرتك تاريخ هجرة. سؤال شكوبا دائما تنسوق قاعدي سائل كسوق قري وقبله حلا هاي المها عروش كتيرة إنتانو أفر بيوت قاعدين هدي وصو قبما مصادعه قبل يسون كذي يسراد دي محي كي ليس سؤال شلباد سائل كسوق قري وحلي أنا صومن أيان دعوة كقاطع حبي كترنكه دعوة أن حقه سكقاطنا يضنا صونكي وحمود ميسا سؤال شحكت سائل كسوق قري وحلي قرناس دا هدي وحكو قرن وقران يهي ما استعمالي كرا أما محرن كرا سؤال شحكت أما سؤال أفراد سائل كان يسوي دي وحلي العقل وقلت لك المساجد اللي قلت سو أيام مساجد اللي قلت سلابة باقضي هو عن دسمن لعقتي مساجد كله ملقلين كرا طبعا قفك العقد اللي جوق فيه أو قف عن مركان نورين ودنتو العقد نسوي قلت لك المساجد إنه جوق فيه سؤالها قيبتها كوباد وقدام بيسا سائل كسوق روح لي هاي مسافر بانا هاي dadka qaar waxay leeyihiin ilaa bil hadaad safarta salaada waa iska qasrin kartaa maadaama magaalada joogin culimada qaarna inta in ka yar baa ka maqlay muddada saxda ah salaada aan gaabin karo anigoo safar oo waliba waqtiga meel ku sugan oo aan socod ku jirin laakiin meeshu aan meeshaydii ahayn oo aan musaafir ku ahay maxay noqonaysaa alxamdulillah salaamu lillahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd ruuxa dumarka ah ee uurka leh ee ilmuhu ka qubanayo dhiiggeedaas waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay damul fasaad مثل الاستحاضة وهذه دور فرانك وكله أنا تانو علمه صار عنو أورك كتيره هي جا كيمنا يواكي دور فرانك وكله استاك درادد صوم كإيه صلاة بدنا كعلم معي صلاة ولا بو أويسي سنيسة وأنا إسكب بصرنا إسا إسكها قاتشنا إسا أنت صلاة كتيرتو سعر وقبان لكن عبادة دي كما جوتشنا يوم وديك دلمدنا معها كي عادتنا معه وحيابها سبوستو إنك يدو إنك أصلا قادنا يو رجع يدم مربيط كستها هذا الله يسكو خلاف لكن علماء دايم بدنا كم يدي ويبناينيس مركادي أذكر كرتو حكوا في عن وقت قاعد أفرطه إن الدو إنك استعماش انتهى بينك أدي يكون سورة بويدا صدق حجاري الله بهاي هينا sida culimada qayb ka mid ah qabaan waad iska isticmaali kartaa xagga hoose waayo isuma furna jihaaska tanaasuliga ah qaybta hoose taranka iyo calooshu isuma furna qardaasta xukunkeeda waa la isku waafaqsan inay xaaraanta haddii waxa lagu qorayaa uu yahay waxyaabo aan ahayn qur-aanka xadiidka ducooyinka nebiga ka soo aroray asmaada ilaahay أنا دعوين كنبي كسر أرري أسماء هذا إلى هي قرآن كطانهين إن حارنته ولا يسقوا فقسين لكن واحد يسقوا خلاف سين علماء مرك قرآن كلو قرأ أسماء هذا إلهي يدعوين كنبي كسر صلى الله عليه وسلم قاركودنا وبنينا قاركودنا وديديا لكن حديث كنبي كسر عليه الصلاة والسلام النبي يقول له من علق التميمة فقد أشرك قفك قرداس حدا شركي بو سمي waa waxa qaraasimka ah ee marka waxyaaba kale ay ku qoran yihiin laakiin hadii quraanku ku qoran yahay qofku markuu live yahay toos quraanka waa lagu akhriyi karay asmaada ilaahay ducooyinka nabiga ka soo arooray salafka qaarkoodna way sameyn jireen marka taas weeyta la isku khilaafay mar leeybana nabigu ma qorin calayhi salaatu wasalaam markuu wax daweynayo القرآن كنتك كو آخر يجري سجى أصحاب توا تاسم بوفي عن نبي محمد السمي صلى الله عليه وسلم العقد مساجد كلا قلت لك علي هدي سورابي ويني أو مسجد كي لقوا عيه ما الله قلت لك علي وسورابي واي مساجد ذا كلا لقوا بحنايا وقباه بدن هدف قوحها بيد الله اللي قليه بيت بالعيمي ويسورابي ويني مركز تغيير إن متكلم الله بدلا وصحوي وينصحيس
muddada qasriga ama la gaabin karo salaada madaahibtu waxay u badan yihiin 4 maalmood oo sixaaxa 4 ayaamin sixaax bayda oo aanu ku jirin maalinku qofku soo galay iyo maalinku baxayo 4 maalmood oo caafimaad qabo oo labada maalmood aanay ku jirin hadduu meel ku nagaanayo qof salaada uu dhammaystiraya siiba hadduu jamac la tukanayana dee aad bay muhiim u tahay oo fadligii jamaca waa inuu ka faa'iidaystaa marka qowlkaasaynu qaadanaynaa muddadu haddii ay tahay 4 maalmood mid ka badan aad halkaa joogayso iska dhammaystir wallahu aclam aad buu mahadsan yahay sheekhu ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro su-aashan waa su-aal ku saabsan arrimaha qoyska xelada gabadha soo qortay ninkaygii baa i furay waqtiyada ka mid a 2 dalqadood haddana wuxuu i furay dalqad kale haddana wuxuu yidhi waan kugu noqonayaa oo labadii aan israaciyey isma raacaane mid unbaa laga soo qaadaya marka halkaa wadaadku qiilka uu ka samaystay maxaa ugu jira su-aal taa u dhow taas u raacaysa ayaa jirta oo waxay leedahay gabadhani ninkii baanu kala tagnay kadibna ciddadii baa dhammaatay waan ciddo baxay markaan ciddo baxay kadib ayuu soo ceshaday iyadoo aan aabbahay iyo qoyskayguna aanu ogeyn wadaadunbaa uun hawshaa dhameeyey arrintaa maxaa ka saxa ayay tiri xaajiyadda soo qortay su-aasha ku xigta saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay waa su-aal ku saabsan xagga bangiyadu lacag bay soo qadimaa yidhaahaa marka muraabaxo ama qof ay alaab u iibinayaan yidhaha lacag ha la soo qadimo 30% 20% iyo wax la mid ah lacagta la soo qadimayo ee qofku sii bixinayo xukunkeedu muxuu yahay su-aalta u dhow baa jirtay oo ahayd iyaduna sideedaba ribada caadiga ah iyo dulsaarka bangiyadu sameeyaan wax farqiga u dhaxeeya ma jira su-aasha ugu dambaysa saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay waxaan hayaa meheradaas markay alaabtu iga dhammaato waan iibiyey anoo alaabtii anoon ahayn baan qofka lacagti kasii qaadaa meherad kalean uga soo qaada marka arrintaa xukunkeedu iyadana sheekh waxay tahay su-aasha ugu dambaysa cafwan saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay lacagta laga sameeyo facebooka iyo tiktoka iyo youtubeka iyo bejajka xukunkeedu muxuu yahay annagoo weliba buu yidhi markaanu doonayno dad badan aanu kasbanno lacag aanu ka helno aanu qabaa'il ku cayno ashkhaas lagu aflagaadeeyo dad badan baa markaa comment ka soo bixinaya qaar qabaa'ilkaa difaacaya iyo qabaa'ilkaanu ammaanayna qaar nooga mahad celinaya markaa sheerta iyo leegtaa noo badata lacag badan baa laga helaa lacagta ama laga xaji karaa buu leeyahay ninka dhallinyaradii su-aalaha furiinka dalan ruuxa dumarkii waxay leedahay ninkaygu uu i furay waan cadad baxay aabbahayoon joogin buu haddana wadaad dambeeyey meheri haddaynu isaga weydiinana waxa laga yaaba inuu wax kala sheego oo idhaahdo mee sidan ahayd taas waa mid su-aasha kale iyaduna waxay leedahay hal dalqana wuu i furay mar kalena labuu i furay isagii baa mufti isu ah oo fatwoonayo le labadaa mid laga dhigayaa isna haddii la weydiiya wax kaluu sheegi laha markaa waa su-aalo laba daraf la xidhiidha muduci iyo madacaley marka waxay u baahan yihiin ciddii garsoorka u noqon lahayd ee labada dhanba wax ka dhagaysan lahayd qofku dhunbaa iminka waxina weydiiyey markaa si loo helo su-aasha saxda ah waa inkii kalena la weydiiyaa marka labadaas su-aaloodoo isku duuba waxaynu leenahay culimada u taga ama garsoorka qaabilsan qaybta qoyska su-aasha muraabaxadu wax waa lagu kala iibsan karaa waa qofkii ganacsada ahaa oo tidhaahda alaabii dir anta aamir bishiraa magacaaga waxaa la yidhaha qofkii ku farayey inaad waxu soo iibiso bacadlahaasaad odhan kartaa isbeerbeerlaha alaabtaa ii dir markuu keenana wuxuu ku leeyahay intaasaa la iga siiya intaa ii saar muraabaxadu waa caynka ah waa ficil laba dhinac ka socda waa mufaacala baa layaha raabaxa iyo raabixu muraabaxa xagga iyo xagga waa la kala faa'iiday marka wuxuuna muhiimahu shuruudaheeda in la mariyo adigu dalabkii baad leedahay ama baan ha ahaado ama qof ha ahaado waa in laguu soo iibiyaa alaabtii marka la keeno kadibna lagaa iibiyaa oo aada la wareegtaa waa intaasu su-aalaha la xidhiidha iibka nin baa meherad baan joogaayoo
alaabtaa ma haysaa haa waan hayaa baan leeyahay kadibna qofkii baan ka iibinayaa meheradna waan uga soo qaadayaa taasi sax maaha inaad iibkii gasho adigoon hayn alaabtii waa muraabaxadan oo kale waxa weeye laba mid bay noqonaysaa inaad tidhaha waxaan baycu salam inuu noqdo aad tidhaha waxaan kaa iibin doonaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas ood u doonto iyo inaad tidhaha isiiso siday u badan yihiin bacadlayaashu isii yarasu oo baarkin kuu sameeyo halkan ku fadhiisiiyo kursi oo meheradda kale kaaga soo qaado meheradda kale marku ka soo qaadayana dee ama waa inuu wakiilka iyo commission saaraa ama waa inuu ka soo iibsadaa waxaana fiican inuu ka soo iibsado tan anaa qaato kaa iibsaday buu leeyahay qofkii u fadhiyu ka iibinaya baycul acyaan bay markaa noqonaysa wax la arkayo markaa dambuu iibku dhacayaa markaa intood meheradda ka soo iibsato jaarkaaga kadib aduu ka siibiyo ka macaash qofkii taasina saasay sax ku tahay iibkuna sidiisaba waa inuu meel ku caddaadaa labadaa iibaynu sheegnay mid ka mid ah su-aashan u dambaysay ahayd baraha bulshada iyo waxa ka socda maanta waynu garan karaynaa balaayooyinka u waaweyn bay ka mid wax soomaalida waxay idhahdaan haddaan af xumaan gacani ma xumaato waxa afkii markuu xumaaday ee isagoo xunuu meel walba gaadho walaaqan oo naxli iyo nacaybsiyo nashuushad xambaarsan ayaa meel walba laga dagaalamay markaasaa badownimada dadkuna waxay ku odhanayaan facebookaa sheegay meel heblaayaa laga see berigii hore odhan jireen b b sidaa sheegtay ka-annamaa run uu yahay ayaa imikana le war meel walba waa laga hadalaya waxaasaa la iskula wareegay dee waxaasi waa haddii aanu jirin lama sheegay haddaba wax lasoo alifo dee lacagtan lagu doonayo marka beenta halkaa laga sheego iyo dembiga halkaa laga galo iyo isku dirku wuu ka wenya ka qof caadiya dad kooban waa tii uu nebigu ka warramayu lahaa waa kadibun yuxmal ila alaafaaq waa been jihooyinka oo dhan la gaadhsiinayo qofkaasi waa ka dembi badanyinka kale marka waxaa halkaa laga sii daynayaa hadduu xalaal yahay oo wanaagsan yahay wacdigii waanadii taariikhdii xikmaddii arrimihii aqoonta macluumaad guud waxaa hadduuya waa xalaal wixii laga helaa hadduu waxaan la sii daynaya kuwan la sheegay uu yahayna waa xaaraan iyaday barbar socoto weliba qaybta xayeysiiska laga sii adigoo xalaal ka sii daynayo tafsiir ka sii daynaya haddii xayeysiis xaaraana lagu soo daadinayo oo aanad iska xidhin taasina wixii aada waday oo xaaraan bay ka dhigaysa marka haddaad kalsooni ka qabto inaad iska bloogarayn karto nimanka meesha samaystay waxa ay kusoo daynayaan oo aad kalsooni ka qabtana wixii aad ka helaysaa waa xalaal haddaanan xayeysiiskaa joojin karayn ama adiga qudhaadaba xumaan aad ka baahinayso waxaad ka qaadataaba oo xaaraan ma laga xaji karaa waxa ka horeeyaba ma la cuni karaa adiga waxaad sheegtay inaad imika biishataba dadka wada qaylaya iswada qaawiye soo wada quturan ee qaaqda haya maxaa lagu daawadaa dad ku heshaa ayuunbaaba u badanba marka wixii laga helay lama cuni karo laguma cibaadaysan karo calafka lama noqon karo haddii aan laga helin shuruudaha aynu sheegnay inuu yahay wax saxa waxaad baahinaysaa xayeysiis xaaraan ina aanu ka bixin wallahu aclam aada iyo aad buu sheekhu mahadsan yahay su-aalihii toddobaadkan insha allah taasaynu ku dayn doonaa waxaanu ka cudur daaranaynaa su-aaluhu aad bay u badan yihiin hadda whatsappka su-aalaha lagu soo diro gelinka hore oo keliya waxa laga 200 su-aalood baa kusoo dhacaya lagama wada jawaabi karo inta ayaynu ka jawaabnay baa insha allah inta kalena wakiilka ah maalinba inta waqtigu inoo saamaxaynu ka jawaabi doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala idmo youtube-ka iyo facebooka page-ka sheekh maxamed sheekh cumar dirir baydin insha allah kala socon doontaa wixii su-aala aada iyo aad baa umahadsantihiin